kulanti wanaagsan daawadayaal giddigiinba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeeni sheekooyinka fanaaniinta iyo qisooyinka fanka Soomaalida. haddaba maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa qiso kale oo ka mid ah qisooyinka fanaaniinta Soomaaliyeed iyagoo ku dhacay. haddaba maanta barnaamijkeena waxaynu kaga hadlaynaa cadowtinimadii iyo weliba dagaalkii ka dhaxeeyay fanaanadii codka halaasiga lahayd ee boqoradii codka Xaliimo Khaliif Cumar Magool iyo weliba madaxweynihii kolka Soomaaliya hayay ee Maxamed Siyaad. colaadaasi iyo weliba dagaalkaasi u dhaxeeya fanaanka iyo madaxweynaha ayaa iyadu waxay gaadhay heer Magool ay ka qayb qaadato gulufkii jabhadihii colaadii iyo weliba la dagaalankii kalitaliskii Maxamed Siyaad. haddaba halkuu ka bilaabmay nacaybka ay Magool u qaaday Maxamed Siyaad. Xaliimo Khaliif Cumar Magool waxay ka mid ahayd fanaaniinta Soomaaliyeed kuwa soo bilaabay fanka Soomaalida. waxay fanka soo gashay dabayaaqadii kontameeyadii iyadoo ka mid ahayd fanaaniintii codkooda iyo weliba luuqdooda ugu hiiliyay fanka Soomaalida, iyadoo weliba ka mid ahayd dadkii ka qayb qaatay gobonimo doonkii iyo weliba in Soomaalidu ay iska qaado heeryadii gumaysiga sancadaha ahaa. Magool ayaa iyadoo codkeeda, maskaxdeeda iyo maankeedaba intaba waxa ay kaga qayb qaadatay in ummadii Soomaaliyeed ay gaaraan gobonimo welibana ku naaloodaan geyigooda Soomaaliya. haddaba Xaliimo Khaliif waxay ka mid ahayd fanaaniintii loogu jeclaa fanka Soomaalida, fanaanada aad u dabeecad wanaagsan oo abwaan kasta Soomaaliyeed uu jeclaa heesihiisa inuu u dhiibto riwaayadihii ugu badnaa. iyada ayaa ka qayb qaadatay heesihii ugu badnaa oo qof dumar Soomaaliyeed ay qaadana waxaa luuqdeeda iska leeyahayd gabadha codkeeda samawaadka ka lalaya ee Allah u naxariistay Xaliimo Khaliif Cumar Magool. Xaliimo Khaliif oo iyadu xubin firfircooneed ka ahayd fanka Soomaalida, isuna arkaysay fanaanad iyadu gaadhay heerka ugu sareeya uu fanaan Soomaaliyeed uu gaaro oo waxay islahayd galaangal badan ayaa fanka ku leedahay, ayaa waxaa dhacday in iyadu fanka kaliya lagu sii daayo iyadoo la dalacsiiyay hablo badan oo iyadu fanka ay kaga soo horeysay iyo kuwa kale isku waqti ahaayeen. ayaa Magool iyadu waxa ay dhaafi weysay halkii ay joogtay fankana ka soo bilowday ee ahaa fanaanimo iyo weliba ku luuqeynta heesaha. haddaba Magool ayaa iyadu doonaysa in madax looga dhigo qeybaha kala duwan ee fanka sida tiyaatarkii, kooxdii Waaberi, akademiyadii dhaqanka hidaha iyo weliba qeybaha kale ee fanka iyo suugaanta ay ka koobneed wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka ayaa iyadu taasi aysan dhicin. Magool ayaa iyadu rajo waxay ka qabtay in kooxda Waaberi madax looga dhigo oo hormuudka kooxdaasi ay noqoto, laakiin halkii ay ka filaysay in iyadu oo ahayd fanaanad cod dahabi lahayd ugu heesaha macaaneed riwaayado badanna ka soo qayb qaadatay in badanna shaqaysay, ayaa booskaasi waxaa lagu bedelay fanaanad kale oo iyaduna dhimatay Allah u naxariistay oo lagu magacaabo Khadiija Cabdilaahi Cali Khadiija Dalees. qudheeda waxay ka mid ahayd hablihii fanka Soomaalida Muqdisho ka bilaabay kontameeyadii, laakiin iyadu maysan lahaynin codka Magool, jilida Magool iyo weliba habsoo gudbinta Magool oo kale. waxay ahayd fanaanad heesaheedu ay yihiin dhowr xabo oo welibana ay aanan ka qayb qaadan riwaayado badan, iyadoo heesaheeda ay u badnaayeen kuwa ay iskeed u qaaday. haddaba Magool oo fanaanadaasi ka galaangal badneed, ka cod macaaneed, ka heesa badneed, in ka badanna soo shaqaysay, ayaa iyadu loo magacaabay xilkii ay filanaysay. Dalees ayaa iyadu waxaa loo magacaabay gudoomiyihii kooxda Waaberi, iyadoo kooxdaasna madax ka noqotay. Magool ayaa waxay u muuqatay in sababta loogu dhiibay Dalees madaxna looga dhigo kooxda ay ka timid iyadoo ku qabiil ama ku qoys ahayd madaxweynihii kolkaasi dalada Soomaaliya hayay ee Maxamed Siyaad. Magool ayaa iyadu waxay u qaadatay in lagu diiday qabiilkeeda hawiyaha ah ay ka soo jeedo, Daleesna xilka loogu dhiibay maadaama ay ahayd qoyska ama qabiilka Maxamed Siyaad ee isagu
wadanka maamulayay sidoo doonana ka yeelayay. haddaba Magool iyadoo colaadii xurguf u qabtay Dalees ayaa haddana xilkii iyo weliba Maxamed Siyaad u diiday inuu wax xil u magacaabo, isagoo hablihii fanaaniinta ahaa oo ku qabiilka ahaana xilal u magacaabay. ayay taasi waxa ay ku dhalisay Magool inay cuqdad ka qaado dowladii iyo weliba talaskii kolka xilka hayay. Magool ayaa iyadu waxa ay ku biirtay jabhadihii la dagaalamay Maxamed Siyaad, iyadoo codkeeda iyo weliba xooggeeda iyo maskaxdeeda kala qayb qaadato in taliskii Maxamed Siyaad xilka xoog looga qaado. Magool ayaa waxay ka mideed fanaaniintii joogay goobaha dagaalka gulufka colaadeedna ka qayb qaadanayay, iyadoo la dagaalantay Maxamed Siyaad iyo weliba tolkii. Magool ayaa iyadu meel cad ka sheegtay sababta ay ula dagaalayso, lana gambanin colaadda ay u qabto Maxamed Siyaad iyo weliba tolkiisii oo iyagu xuquuqda ay lahayd duudsiiyeen. iyadoo kaliya maaha qabiilkii ay ka soo jeeday oo u badneed jabhadda USC ayay Magool u arkaysay in xaqoodii la duudsiiyay. Magool cidna ugaagama habran inay la dagaalanto taliskii Maxamed Siyaad. si toos ah ayay heeso liddu ku ah taliskii Maxamed Siyaad ay u qaaday, iyadoo guubaabin iyo kicin kala qayb qaadatay jabhaddii gulufkii colaadeed kula jirtay taliskii Maxamed Siyaad ee lagu magacaabayay USC. goobaha ay ku kulmaan hogaamiyaasha iyo weliba madaxda jabhaddii USC ayay Magool ka jeedin jirtay khudbado iyo heeso dhiirigelin ah, iyadoo sidoo kalena tegi jirtay goobaha colaadda iyo weliba safka hore ee dagaalka, iyadoo ka qayb qaadanaysay in lala dagaalamo Maxamed Siyaad iyo tolkii intaba. haddaba colaadda Maxamed Siyaad iyo Magool waxay ka soo bilaabatay kadib markii uu ugaaga eexday fanaanad kale ay isku qoys ahaayeen Maxamed Siyaad, iyadoo Magool oo xaq u lahayd in xilal badan oo ay ka qabato tiyaatarkii iyo weliba kooxdii Waaberi iyo weliba hidaha iyo qeybaha kala duwan ee hidaha iyo dhaqanka ee ku raacsanaa wasaaradii warfaafinta ayaa iyadu la siinin. fanaanada weyn ee Magool waxa ay ka dhabeysay dagaalkii ay la gashay Maxamed Siyaad, si kastoo ahaatee waa ay ku guuleysatay iyadoo xilkii iyo weliba maalin cad ka saartay magaalada Muqdisho taliskii ee iyadu ula muuqday inuu kaga hiiliyay qoyskiisa iyo weliba fanaaniinta ku reerka ahaa intaba. Caleema Khaliif waxay ka mid ahayd fanaaniinta aan iyada oo kale fanka Soomaalida dib u soo maraynin. intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena maanta. dib dambe inteenu u kulmi doono waxaynu idinkaga tegaynaa nabadiina nooli kulantay. amaana Allah.